deegaanka Ras Kamboni waa deegaan taariikhi ah oo dhaca koonfurta Soomaaliya waa cirifka ugu koonfureeya ee guud ahaan geyiga Soomaaliyeed deegaankan taariikhiga ah si kale waxa uu deegaankani mar kale magaciisa soo baxay sanadkii aynu soo dhaafnay 25 November markaas oo ahayd markii halkan laga soo dejiyay ciidamo kala duwan oo ay dawladda Soomaaliya diyaarado ka soo saartay magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaas oo gaaraya ku dhawaad 2000 oo askari halkan ayay ciidamadaasi soo gaareen sanadkii hore 25 November oo dabcan xilligaasi waxay ka dambeeyay amnigu xaaladii hore ee uu ku jiray ay wax iska bedeleen imaanshaha ciidamadaas oo khilaaf xoogan ka dhex abuuray Jubbaland iyo dawladda dhexe ayaa ugu dambeyntii sababay in khilaafku uu gaaro in gacanta la isla tago iyadoo ay ciidamo kala duwan oo kuwa Jubbaland iyo kuwa dawladda dhexe ay halkan isku farasaareen wuxuu ahaa dagaal qaraad wuxuuna ahaa dagaal guul ama geeri u ahaa dhinacyada gulufkan marka labada ciidan laga yimaado waxa uu dhexmarayay Inayustar aw Cabdi Haarun iyo Inasuuban Sabriye Axmed oo midna Muqdisho geedgeed u yaqiinay halka kan kalena Kamboni ilaa iyo Kismaayo badda ku teedsan uu kalluumada ku jira jaajad u yaqiinay si kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wadaay waayihiisa inta u badan Muqdisho ku soo qaatay baddana dabaal mooyaan waligii wax kale wala bareerin taacagsigeeda madaxweyne Axmed Maxamed Islaam waa kalluumaysto hore oo Kamboni waqti badan ku soo qaatay cimrigiisa in badan oo kamid ahna badda dul saarnaa garanaya quuriga kalena garanaya xilliya badeedka kaskaasiga kuusiga iyo matalaayaha martidana argoosatada ku maamuusi jiray diyaaradihii maalinka halka ka soo degay Axmed nasiib ma ahayn laakiin waxay ahayd tallaabo lagu tijaabinayay aqoontiisa badeed iyo tiisa askariyeed waxay u ahayd imtixaan uu ku kaliyoobay si qishka looga ilaaliyana qol madow dhakada lagaga xiray Axmed oo lagu yaqiinay bareeraha ka sokow nasiibkiisa waxa uu tijaabiyay xirfadiisa hawsha loogu yeeray maalinka ay ciidamadu soo degayeen oo ku beegnayd maalinkii dib loo doortay dabaaldegii waxa ka jiray caradii uu ka qaaday xogta diyaaradaha oo ay fadhigaasi laamaha amnigu kula wadaageen waxa mar qura isbedelay jawigii farxadeed ee uu ku jiray ka hor kalmad jeedintiisa dadka ka ag dhawaa aan si xogta haynin waxay sawiran kareen in ay wax walba qasan yihiin waxa la gaaray kalmadiisii waxay ahayd qodbad ay caradu buux dhaafisay wuxuuna gaaray xad aan kalmad lagu qeexaa jirin ayse dadka goobta joogay qaar ka mid ah ku talinayeen in ay kooxda borotokoolka u qaabilsan hadal jeedinta ka joojiyaan oo ay dejiyaan maanta dawladda Xasan Sheekh wuxuu dib u xusuusinayaa 2013 wixii dhacay iyadoo maanta ay taalo in la yiraahdo Axmed Madoobe Kenyaanka Kenyan baa sida yeeli amnada Kenya am Soomaali baana waxa anaga Soomaali aan ku wada hadli weyno la Itoobiya aan noqon wala Kenya aan noqon wala cid kale aan noqon Soomaali baana Soomaaliya asal waxay maanta maraysaa waxaan oranayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taariikhda dib u celin dadka reer Jubbaland way ka bogsadeen shalay waxay soo mareen wada hadal baan diyaar u nahay dawlado kale ha ku wareegay maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo Ras Kamboni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal Soomaaliyeed si 2013 la isku laayo laakiin ma dhacayso Jubbaland waa Jubbaland maamul baa ka taliya maamulkaas mas'uulka lama aqbalayo ciidanka ahayn oo amniga faragelisa dhibaatada geysata shaqo kalena gashana lama aqbalayo maalmihii ay cajaa'ibtu buux dhaafisay ayaa tirsamay ciidamo ayaa goostay kamay soo goosan shabaab ama umaysaba goosan Jubbaland ayay ka goosteen ciidamadii Kamboni ee dawladda dhexe ayayna isu dhiibeen habeen madow ayaa laga dejiyay caasimadda Soomaaliya waxay ahayd taariikh ugub ku ah dawladnimada dhutinaysa ee Soomaaliya maalmo kadib dagaalkii waa uu qarxay dhinacyadu waxa ay isku eedeynayeen daroon la isku isticmaalay iyo al-shabaab oo la soo dhexmaray hase yeeshee eedahaasi ma ahayn kuwa dagaalka wax ka taraya
wuxuu ahaa dagaal qaraadh oo uu dhiig ku daatay taa cagsigeeda filashadii la qabay ay dhinac walba wax iska beddeleen dhimashadu waa ay ka yarayd xisaabaadkii la saadaalinayay in ay Jubbaland dagaalkaasi guul ka gaartayna waxay ahayd mucjiso aan maanka saacadahaasi lagu hayn tabaneeyo cisho oo ay halkan ku sugnaayeen gabagabadii waxa ay ku dhamaatay in ciidamadii Soomaaliyeed ay xadkan aan hadda ku suganahay ka tallaabaan iyagoona dowladda Kenya isku dhiibay hubkii dhiibay gacmahana taagay dhacdadan oo ahayd dhacdo qaadan waa bulshada Soomaaliyeed ku noqotay ayaa ilaa iyo hadda aynan jirin cid loo soo qabtay iyo cid su'aalo laga weydiiyey ciidamada Soomaaliya oo lugtooda xadka kaga tallaabay ayaa muddo oo ay la joogeen ciidamada Kenya oo hubka ka dhigtay gabagabadii waxaa diyaarad loo saaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ciidamadii iyo saraakiishii watay iyadoo aynan jirin ilaa iyo hadda cid su'aalo laga weydiiyey dhacdadaasi oo maanta laga joogo sanad buuxa dhacdadaas iyo dhacdooyinka la midka ah ee dalka ka dhaca ayaanan jirin cid wax laga weydiiyo ugu dambeyntii waxaa hadda Rais Kamboni gacanta ku haya oo maamulaya ciidamo Soomaaliyeed oo ah ciidamada Jubbaland ay maamusho kuwaas oo hore looga gacan roonaaday sanad kadib maanta waxa aan soo booqanay deegaanka Rais Kamboni oo aan xadkiisii ku suganahay iyadoo ay ciidamada Jubbalandna amnigii dib ula wareegeen Maxamed Fanax ayaa ahaa qofkii hore u maamuli jiray deegaankan oo gacanta ku hayay sidoo kalena ku wareejiyay dowladda federaalka Soomaaliya oo markaasi keentay ciidamo kala duwan hadda waxa maamulaya gudoomiye cusub oo ay degmada Badhaadhe u soo magacaawday Jubbaland kaas oo lagu magacaabo Xasan Gaal Jecelow kaas ayaana ah qofka hadda ka arrimiya isagoona Jubbaland si toos ah uga amar qaata waxaana soo dhamaaday gebi ahaanba khilaafkii ka dhashay khilaafkii dhaliyay gacanka hadalka dhex maray Jubbaland iyo Soomaaliya Abuukar Cabdi Xasan waxa uu noqon gaaray madaxweynaha Jubbaland si kale haddii aan kuugu sheego waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii 25 November 2024 Axmed Madoobe kula loolamay kursiga Kamboni ayaan kula kulannay dhacdadiina dib ayaan u xasuusinay aniga waxaan ka mid ahaa musharaxiintii doorashadii 24 bishii 11 taariikh 25 ka dhacday Kismaayo ayaan ka qayb galan ka mid ahaa sharax madaxweyne ayaan ahaa maalintaas oo ku beegnay taariikhda maanta si lama filaan ah ayaa waxaan ku imid magaalada Rais Kamboni anagoo howlo bulsho howlo maartay wacyigelin iyo research kale u soconay yaa waxaan kulanay magaaladii taariikhda cusleed ay ka dhacday arintaasi dhacday taariikh 25 waxay ahayd arin laga baaqsan karay anaga siyaasiyiin ahaan hore uga dignay aan ogeyn caaqibteeda iyo caqabadaha ka iman karta arintaas oo laga maarmi karay markii dambana hadee sababtii aan ogeynay iyo duruufii aragta ka keentay harkaasi ka dhacay marka sanad kadib maalintii ayadeed maanta ayaan halkan ku nimid waxaan la kulmay magaalo ka bedelan amniga aad u qurux badan yahay ma sha Allah ummadii ka soo ifatay dhibaatooyinkii burbur la dagaalkii hore meeshaas ka dhacay wuxuu sababay burbur iyo barakac iyo dhaawac iyo dhimasho iyo in ciidamadeena qalabka sida sharafta la aan ku faani jirnay xuduudaha kala ka gudbaan sanad kadib waa sidee xaaladda Rais Kamboni Luqmaan Deeq Cabdi gudoomiyaha tuulada Rais Kamboni iyo taliyaha amniga Rais Kamboni Maxamed Cabdikariim Raage bal hay nooga sheekeeyaan deegaankan sida laga warqabtaan baa 25 bishii 11 ayaa waxa ka dhacday caqabad u shaqaaqa waxa ka soo degtay diyaarado lagu khalkhalgelinayo amniga Jubbaland taasoo sababtay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxba galabsanin dhibkii ay sababta u ahaa gudoomiyihii joogay Rais Kamboni muddada faraha badan ee deegaanka maamulayay inuu dhexdeeda ku dagaalamo dhibaatana uu ka geysto dhibaatadii ay sababtay ay asal u noqotay dhibkii soo gaaray inuu meesha dagaal ka dhaco dhib badan inuu ka yimaado waxaan u maleynayaa waa maanta maalinteedii kale ku aadan tahay taariikhda inta kadib haddana mar labaad waxaa dagaal oo dhacay bishii 12-keedii ayaa Rais Kamboni nimankii ka soo duulay ay soo sababo ay u ahaayeen Xasan Sheekh Maxamuud
iyo ra'iisul wasaare Xamse inay sabab u noqoto inuu dhib meesha ka yimaado iyagoon meesha faa'iidada ka imanaya aan ogeyn oo ku soo duulay maamul goboleed ka mid ah maamul goboleedyada Jubbaland oo joogaan ciidamada federaalkana ay ka mid ahaayeen ciidamadii joogay Jubbaland sababaheedii darteed baa waxaa deegaankan uga yimid shaqaaqo alxamdulillah intii ka dambeysay maysan dhicin wax dhibaato oo ka timaada deegaanka nabadgelyada guud iyo dadka shacabka iyo deegaanka iyo saraakiisha iyo ciidamada iyo deegaankooda nool waa dad si fiican u wada tacaamula oo waliba waqtiyada hore waxa dhici jirtay inaan haday gaadho 12 galabnimo inuuna qofna baadiyaha u bixin qofna uu ka soo galin oo nina uu gurigiisa soo soonin laakiin hadda qofku 3 saac ilaa 2 saac oo habeenimo xiriirin baa la sameeyaa odayaasha qofku uu galaa uuna soo baxaa deegaanka nabadgelyadu aad buu fiican yahay bisheedii kale oo filayo sanad ay ka soo wareegtay xilligan oo kale waxaa dhacay amniga iyadoo Jubbaland ee wadanka joogto oo ciidankeedii joogo amnigeedii joogo nabadgelyo lagu joogo inay yimaadaan ciidamo diyaarad lagu keenay oo Muqdisho laga soo qaaday oo wax xog ah deegaanka iyo dadkii joogay iyo dowladda Jubbaland mid aan siinin oo yimid sidaa darteed waxay gashay magaalada iyo ciidamo far badan baa yimid khalkhal baa dhacay ciidanka sii joogay iyo ciidamada yimid annagoo wuxuu la yaaban yahay deegaanka yaaban yahay ciidamo ay soo kordhageen qaab colaayad u muuqda baa haddana waxay sameeyeen isla markiiba haddana ayaga xabadda bilaabay oo dagaal bilaabay ciidankood degan bay waxay ku bilaabeen inay daroon ay ku weeraraan oo xabadda ayaga bilaabay marka dagaal baa dhacay sidaas waxay u noqdeen wax la qabto iyo wax isdhiiba iyo waxaan ku si fiican diyaaradii loo saaro ayagoo maxaabiis ah intii la qaaday si fiican loo geediyaanka yani ka yimaadeen intaa kadib Jubbaland deegaankeeda iyada joogta nabadgelyada baa gacanta yaa ku soo laabatay amniga waa sidiisa noqday waagaa ka hor amnigu soo ahaa si ka sii fiican buu hadda yahay gunta gunaanadka iyo gabagabada gulafkii waa uu idlaaday guushiina dhinac ayay raacday ha yeeshee ma jirto sanad kadib dhinac ilaa iyo hadda dhaliisha in uu qaato ogol mana jiro askarini ha ahaadee qof dagaalkaasi maanta ay maxkamadii u xukuntay ama ugu socoto mana jirto wax laga bartay ama laga bowsaday waqtiga ayaa bidhaamin doona bishay dooniba ha ahaatee